soo dhawaada daawadayaal maanta waxaa idiin tusin doonaa filim cabsi leh oo ahaa 2018 magaciisuna yahay Hellfast. Qaswadayaasha ka hor daawo oo is ilaali. Beerta nashishada ee mawduuca cabsida leh ee loo yaqaano Hellfast ayaa timid Oregon Grove oo boqolaal dad ah ayaa lacag bixiyay si ay ugu raaxaystaan waayo aragnimada cabsida badan. Caawa 3 saaxiib ayaa galay guri xun oo mid ka mid ah way ka go'day kooxda markii uu la kulmay dhamaadka dhintay. waxayna bilowday inay raadiso meel laga baxo iyadoo aan ogeyn in mid ka mid ah ay jaanjusyada qurxinta ku jirto aanun ahayn boombalada. mid kale waxay raacday inanta meel kale oo meyd ah. markay soo jeesatay waxay u aqoonsanaysaa inuu yahay ninkii habeenkaas oo dhan daba socday. waxayna weli aaminsan tahay inuu qayb ka yahay soo jeedashada ilaa kan kale soo dhawaado oo uu ururiyo si uu qariyo. waxay u samaysay waxa uu ka soo laadaadinaya saqafka si uu uga dhigo in uu ku dhex milmo weelasha. mana heli doonaan booliska ilaa 3 maalmood kadib markii uu bilaabay inuu soo ursado. dhowr sano kadib Natalia waxay booqatay saaxiibadeeda hore Brooke taas oo aanan arag in muddo ah sababtoo ah waxay ku kala nool yihiin meel aad u fog oo ay ku mashquushay college-ka. Natalia waxay ka xun tahay inay u aragto Brooke oo hadda la nool Taylor oo ah naag aad u khalafsan ku majaajiloota inay jeceshahay saaxiibkeeda Gavin. Brooke waxay u kaxaysay Natalia qolkeeda waxayna ballan qaaday inay heli doonaan Sabtida oo dhan Taylor free ah laakiin caawa waxay heli doonaan Sabtida oo dhan Taylor oo free ah laakiin caawa waxay raacaysaa Hellfast. Gavin ayaa beerta tikidhada VIP-da u siisay gabadhu waxayna aadaan Hellfast habeenkaas Halloween-ka iyaga oo Brooke saaxiibkeeda qun kaas oo u sheegay sheekada meydka laga helay Oregon Grove-ka sanado ka hor oo ay kulantay Asher iyo Gavin. waxay ku wareegan aaga iyagoo sawiro la qaadaya qurxinta iyagoo ka naxsan jilayaasha labiska wato oo cabitaano cabaya iyagoo ka wada hadlaya soo dejishada soo socota ay ka baqbaqayaan. dhanka kale mid kale wuxuu soo gaaray beerta isagoo si caadi ah u libisan laakiin isla markiiba uu gudaha u soo galay maskarada ayuu xirtay oo daboolka markii uu si lama filaan ah ugu garaacay gabadha u sheegtay in uu aanu cabsi qabin. waxa uu mindi ka xaday gaadhi. asxaabta waxay aadayaa meel soo jiidasho leh oo la yiraahdo Defmont School ka oo ay ku nool yihiin caruusadaha iyo jilayaasha labada kadib markii ay sahmiyeen golol guran iyo jida kala duwan. gabdhuhu si lama filaan ah ayay wiilasha ugu soceen oo waxay la kulmeen naagtii dhulka ka dhacday. mid kale daqiiqado ka hor way baqaysaa oo oynaysaa oo si cad ayay wax ugu cararaysaa laakiin habluhu waxay u malaynayaan inay qaybta ka tahay bandhiga markay ku dhumato daaha gadaashiisa. kan kalena wuu soo baxaya markaas gabdhuhu isaga lama cajabin markay isku dayeen una baxayn wuxuuna soo galay jidkooda ilaa ay Natalia u sheegto naagtii uu erganayay in ay daaha ka dambeyso. wuu dhaqaaqayaa si uu soo saaro kadib markii ay Brooke iyo Taylor ay ka baxeen. waxa uu islaanta horteeda ku tuurayaa Natalia taasoo si degdeg ah uga soo baxday dhismaha iyadoo aan dareemaysa in arrimuhu xooga daran yihiin. gabdhuhu waxay dib ula midoobayaan wiilasha banaanka. Natalia isma celin karto laakiin ma ogaan karto kan kale wuxuu ka eegayaa meel fog isagoo farta saaraya afkiisa isagoo aamusnaan ka codsanaya inay sirta qariso. waxayna kaloo arkayaa isaga oo daba socda agagaarta beerta marka ay galaan aaga ciyaaraha Carnival-ka. Queen waxa uu ka guuleystay abaalmarinta Brooke laakiin Gavin ma awoodo in uu wax helo. Natalia si kastaba wuu isku dayayaa. labaduba waxay helaan goob sawiro waxayna go'aansadeen in sawiradooda laga qaado iyagoo wadaaga dhunkasho kadib markii ay ku heshiyeen waayeen sawirka mid kale. halkaas ayuu ku raacay oo waxaa helay fursad uu ku xado sawirka laakiin Brooke ayaa arkaysay oo daba socotay. uu ka baxay waa dhabarka dambe oo laga tagay markii Brooke meeshii timaaday. waxay bilowday fikrad labaad si lama filaan ah. Queen uu ka naxay markuu ka soo muuqday dhabarka oo si wada jir ah ayay dib uga noqdeen kooxdii kuwaas oo weli meeshii ka saaray dhibaatadii oo dhan. qayb ka mid ah bandhiga saaxiibada waxay rabaan inay aadaan dateless
dadka kale. Laakiin Gavin dib ayuu u joogay isagoo go'aansaday inuu guuleysto ciyaarta oo la ciyaaraya Natalia, iyadoo koox saf ula jirto inay fulaan aaga xiga oo ay saxiixaan cafiska u ogolaadaan jilayaasha inay taabtaan Gavinka. Wuxuu isku dayayaa inuu ka iibsado abaalmarin mid ka mid ah ciyaarta, laakiin wuu diiday. Si kastaba ha ahaatee, markuu arkay ninka soo saaraya abaalmarinta badan, wuxuu helay qolkii lagu kaydinayay oo gudaha ayuu u galay si uu u xado. Kadib markii uu mid doortay dool ka mid ah sanduuqa, markaas ayuu albaabkii xiray oo waxa uu foolka la kulmay Lakeli, kaas oo ka dhigaya kadib uu madaxa ka jabiyo, kadibna si in uu ka isticmaalo meled, kadibna uu madaxa ka jabiyo. Markii kan kale uu arko inay telefoonka Gavin uu ka helayo fariimaha Natalia, wuxuu adeegsanayaa farta Gavin si uu u furo oo ugu jawaabo isagoo iska dhigaya isaga. Markii la gaaro waqtiga la fuulayo, Taylorka iyo Asher waxay fuulayaan hal baabuur. Brock iyo Quinn waxa ay fuulayaan mid kale, iyagoo Natalia ugu tagaya in ay kaligeed fuusho, iyadoo ay lamaanayaashu ay soo baxayaan oo ay ka boodeen qurxinta kala duwan baabuurka. Natalia uu istaagay isla markaaba ka hor inta uusan demin iftiinka gudaha. Si lama filaan ah ayuu u bilaabay. Natalia waxay aragtay mid kale ee u soo socda, waxay doonaysaa inay baxsato. Badbaada ayaa xayiran. Dhanka kale, lamaanayaashu waxay dhammaynayaan raacitaanka, waxayna ku sugayaan banaanka iyagoo maqlaya khaylada Natalia. Marka uu ugu dambeyntii gaadhigeeda soo baxo, mid kale waxa uu ku fariistay daboolka. Markii ay soo baxeen rag baan isku dar ah iyo maskax, waxaa daaha laga qaaday in kani aanu ahayn kan kale, laakiin kooxda jilayaal ah oo ficilkoodu yahay baabuurka dadka kaligood ah ayay ujeedkoodu tahay si ay ugu siiyaan qof kale. Kooxduna waxay sii wadaan inay soo wareegaan beerta, iyagoo ag istaagaya qalab jireed oo Asher u ka dhiiran inuu gacantiisa geliyo Taylorka, waxaana si lama filaan ah u qaaday mid ka mid ah jilayaasha. Laakiin waxay mar kale heleen ilbiriqsi kadib, iyagoo ku riiqaya cabsida. Kadib, koox caruur ah oo naxdin leh ayaa u muuqday inay gacmahooda ku geynayaan deadlights-ka, iyagoo u dhex maraya meel bannaan ah oo ay ka buuxaan qiiq iyo rag wejiyada ka soo duubtay. Markaan midka kale oo dhabta ah waa daawanaya mar labaad bay u kala qaybsamayaan si ay u galaan labada qaybood.